wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta wasaaradaha ciyaaraha iyo dhalinyarada dowlad goboleedyada dalka ayaa maanta si diiran waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Garowe. wafdigan ay hogaaminayso wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa garoonka diyaaradaha magaalada Garowe waxa ku soo dhaweeyay wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda xiriirka kubadda cagta Puntland ururada dhalinyarada ururada haweenka waxgarad kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan magaalada Garowe. wasiir Khadiija Maxamed Diiriye ayaa safarkeeda magaalada Garowe waxa ku wehelinayay wasiirada wasaaradaha sportiska iyo dhalinyarada dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo xubno kale. soo dhaweyn kadib wasiirada iyo xubnihii la socday waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Garowe. ugu horeyn waxa saxaafadda la hadlay oo dareenkooda ku aadan imaatinka wasiirada ka warbixiyay madaxda ururada dhalinyarada haweenka iyo ciyaaraha Puntland. kal iyo laab baan ku soo dhaweynaa gaar ahaan Garowe hadaan nahay. soo dhawow Khadiijo, soo dhawaada caasimadda Puntland, ku soo dhawaada welcome. kelmadda leysay madaxweyne wasiir waxaan kula yaano ku hadlaya magaca guud dhalinyarada Puntland iyo kuwa Soomaaliyeed ba kula yahay ku soo dhawow Puntland. waxa weeye aad bay farxad noogu tahay inaad wax weeye adiga wasiiradu baan soo booqataan runtii. waxa weeye waxaan diyaarnaa inaan marka saaxiib horumarka dhalinyarada aan ka shaqeyno anagoo ka shaqeyna wasaaraddeeda dhalinyarada ciyaaraha dowladda Puntland marka saaxiib ku soo dhawow Puntland caasimadda Puntland waa caasimadii hooyada ee Puntland ee dowladda maanta madaxda ka tahay asaaskeedu ka bilowday marka ku soo dhawow. wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed ayaa dhankiisa si diiran ugu soo dhaweeyay wasiirada magaalada Garowe isagoo safarkeeda ku tilmaamay mid looga arinsanayo arrimaha dhalinyarada iyo sidii loo horumarin lahaa isdhexgalkooda. wasiir mudanayaal farxad bay noo tahay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga shaqada iyo shaqaalaha Puntland inaad maanta Garowe la joogtaan oo ah magaalo madaxdii caasimadda Puntland. sidii qorshaheenu ahaana uu yahay kulankii afraad oo wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Marwo Khadiijo ay horseed noogu ahayd sidii aan u taabagelin lahayn doorka nooga aadan dhalinyarada horumarinta dhalinyarada iyo isboortiga guud ahaan Soomaaliya taas oo qorshaheedu yahay aan aad uga mahadcelinayo hoggaanka wasiirka si joogto ah shirar joogto ah inaan u yeelan doono si joogto ah isaga warhayn doono. waxaan filayaa sidaan hore u sheegay maama Khadiijo inay noqon doonto iyo wasaaradaha dhalinyarada iyo isboortiga ee gobolada inay noqon doonaan halka ummadda Soomaaliyeed mar labaad la isaga soo celin karo. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa ka mahadcelisay soo dhaweynta aan loo kala harin waxayna ku sheegtay ujeedada ka dambeysay imaatinkeeda ka qaybgal shirweyne lagu go'aaminayo siyaasadii lagu horumarin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. waxaan hadda kulankan u yahay sidii loo midayn lahaa qorshaha wasaaradaha dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee dhalinyarada isboortiga si loo helo horumarin dhab ah oo dhalinyarada isboortiga. bulshaweynta reer Puntland gaar ahaan caasimadda gobolka Nugaal ee Garowe ee caasimadda Puntland waxaan ku wada faraxsanahay inaan isu nimid mar kale haddii Allaha ugu dalo ogolaado labada bariyo soo socoto waan joognaa saadan waan joogaynaa haddii Allaha ugu dalo ogolaado. mudane wasiir walaalkay Cabdiraxmaan aad iyo aad aan idinkaga mahadcelinayna jazaakum Allahu khayr. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay safarro midkan ka horeeyay ku tagtay qaar ka mid ah deegaanada maamulada ka jira dalka waxaana shirka wada tashiga aayaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee bari ka furmaya magaalada Garowe uu noqonayaa midkii afraad.